سلسلة حلعبيرة اللي نفسه بنو مشي كرتو اللي يزدهر أفري وحصل قوة إن عرفتي بلا وقتني إلى بعدها أنا قياسته أنت ولا حريصي كل يسقال بقول يسنتي إلى كل يسقال بقول يسديدي اللي قاعد يسوحوا حل الأولك الصومالية ولي أن دبل وكرا قيمي حيبها الموري حل أن قميص وبدها ذلك قوة فين حل أي صومالو إسكور قبته ذاتكو تحمل تري سفرها بالبركة صباحنا أي برا وسوق قال تري dalku dawladda xamalahayn sida dadkeena Soomaalida tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka alaad iyo nabad guddoonka gabadh dambaysta ah iyaga ayaa laga sugtay dhinaca kale meelaha qaarkood waxa iyaguna ka dhisnaa maamulo sansan dawladeed lahaayo ilaa heer shisheeyaha ka madax bannaana kuwaasoo ay ka talin jireen boqorro iyo suldaano dalka u dhashayo madaxnimadoodu ay kala dhaxlid ku saleysnayd waxaa ka mid ahayd sadanadii hobyood iyo tii bari iyo tii haddii alla guurooya galadii iyo bookroontii afgooy waxaase intoodaasba ka awood badnaa kana magac beeraa dhaqdhaqaaqi gobonnimo doonka ah ee daraawiishe kaasoo dhidibada u aasay halgamaagii gabayaaga iyo aqoon-yahankaba ahaa sheekh maxamed cabdilla xasan oo sayid maxamed caanku ahaa wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan qoloqolo ku dhisnaa jihaad diinta looga qeyl helay awooddii maaraynta iyo maskaxdii weyneed ee sayidka ayaa suuro gelisay muddo dheer daraawiishe inay gacanta sare geeska afrika ku yeelato dowlado waaweyn sida ingiriiskana ay u goojadayaan waxa uu xilligaani ku beegan yahay kolka taya ahaan markii ay maansada Soomaaliyeed ugu wanaagsanayd ee gabayada quruxda badan fariimaha la isugu tiri jiray waxaa noolaa koox maansayahana oo la wariyay dhammaantood inay dhasheen guddi caanka ah ee gobaysana la magac baxay loona badan yahay inuu ku aadan yahay sanadkii 1865 gugaas maansayahanada loogu abtiriyaa ama la sheegay in dhasheen ma yaray waxaana ka mid ahaa sayid maxamed cali dhuux iyo qamaan bulxan sababtii kolka ay silsiladan xalacbeera ku bilaabantay xilliyadaas waxaa bulshooyinkii Soomaaliyeed ee raacatada ahaa oo caada ahaa magac iyo awood siyaasadeed ninkii rabaaba inuu ku dadaalo siduu kula xidhiidhi lahaa mid ka mid ah qoysaskii ka talin jiray maamuladaas aan carabka kusoo dhufanay haddaba مثل إلهها ولا أورنتي أحمد براعي وأوجادين وواحد عبد الله واحد مجمع وفاء واسمه وأنا براعي محمد نور عبوري عن سيد الله وده خصوصية حيوة وأهل جاي عمل كتير تلاقيه كلي تريقة وكلي تلسنا معاه في الأرض أحمد براعي بحكم أبتسم عليه كل كبويسكي يجون الدجاجة العسكري من تري markaas uu doonay inuu la xidhiidho reer Kanaadiid oo 60 sano muddo ku dhow gobolka mudug magaalada Hobyood uga talin jiray yaadka iyo xaqada gabadha reerkooda loo wadwaara ka soko markaas oo kale waxa uu ninka guurdoonka ahay si xaysan jiray dhalinyaro iyo garmadow ay maadeeyeen kuna tilmaaman kula joog wanaag haybad iyo iftihaamayntaba Axmed Buraale hidaas kama uu doofin markuu Hobyood istaagayna waxa hareer socday taqarankooda lala afjabay oo gobonnimadoodu ay foolkooda iyo hubkoodaba ka muuqato tagaas ayaa waxaa ka mid ahaa nin lagu naanaysi jiray Xalacbeere ha yeeshee magaciisa runta ahi uu ahaa Xuseen Casuur Cali silsiladani waxay kolka ku saabsan tahay kaftan ninkaa ku baxay iyada oo maansayahanada qaarkood ay hunguri weyne iyo cid weyne iyo hunguri xumo intaba ay ku tilmaamayaan qaar kalena ay ka daafacayaan kolka qaarkood inkastoo arrimo kalena lagu soo qaaday haddana ujeedada silsilada isaga ayaa tirdaxaad u ah isaga ayayna doodu ku socotaa kolka sidii caadada Soomaalidu ahayd ninkii dadabgalka ahaa ee ogaadeen ee doolla iyo ciid ka yimid Axmed Buraale oo hor socday si wacan baa Hobyood loogu qabtay waxaa loo asteeyay guryo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo waaweyn oo ay maalinimada harsadaan halkaas ayaa lagu dhaqaaleyn jiray muddadii uu wadahadalku u socday lagala xaajoonayay garadkii ay wadeen iyo gashaantimaha reeraha midda ay doonayaan intay tahay markii Axmed Buraale gabadhii la siiyey ee Sodog Seediyaal iyo Sodohdiiba ay isbarteen xaragadiina lagu heshiiyey wax uu bixiyey markaa iyo wax uu ballan qaaday markaas ayay isaga iyo raggii la socday amba baxu faarumaysteen ha yeeshee waa meel wax laga wadaaye haddiiba ma ay gadoomin Hobyo iyo xididkii dhexdiisa ayay toddobaadyo kale isaga sii nagaadeen maalintii dambe koox iyagii ka mid ah oo geedihii ay harsan jireen harsanaysa
ayaa hardheere oo ku jiray waxa alla afkiisa ka keenay war oon baanu u dhimanay yaa loo duceeyaayo seeraha noogu taga oo biyo nooga keena soo iyagu ma daadine waxa geedka meel dhinaca ka fadhiyay oo wax ka harsanayay kura yar oo ka tirsanaa cilaha ay martida u ahaayeen kiibaa orod istaabtay oo odayadii Cismaan Maxamuud inta u tegay ku yidhi nimankii ogaadeen baan soo maray oo waxay lahaayeen oon baanu u dhimanay yaa reeraha biyo nooga keena ragga ku jiray odayaasha ah la oran jiray Cali Sharmaarke ayaa kolkaa kuragii wuxuu ku yidhi maandhow ninkii hadalkaa yidhi nimanka ma ka garanaysaa magaciisa ma taqaan wiilkii wuxuu yidhi magaciisa garan maayo waase ninka dheere aadka u casee quruxda badan ay hardheere ku lahaayeen laakiin magaciisa kale anigu ma aqaan waxaa la yidhi halkaa ayaa Cali Sharmaarke gabay uga muuqday waa gabayga bilaabay silsiladda hardheere waana gabayga keenay in ay gabayo badan oo jawaabi ay ka soo noqdaan Cali Sharmaarke waa sidaan soo sheegnay waa reer Hobyood waa Majeerteen oo Cismaan Maxamuud oo Bahay Yaquub waa qoyskii xukumay ama ka talin jiray Hobyood midda kale wuxuu ahaa ninkii dhalay Allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke marka aanu gabayada intaanu wadno waxaanu sheegi doonaa gabayaa kasta qorada uu dhashay iyo halka uu wax ka warmaynayo sidaa darteedna waa inaan lala yaabin haddii aanu sheegno qabiilka oo soo celcelina sababto waxa weeye gabayga Soomaalida lama garan karayo haddii aan la sheegin cidda loo tirinayo iyo cidda tirisay xiriirka qabiiladeed ama xiriirka toleed oo ka dhexeeya marka Cali Sharmaarke تحديثاً سؤال صعوطة بلغة السلسلة سلام سوى الشيء وحكفانا يعني هندات خضانا إلهي قعنتو ذا وحكي ليه يقعون أي أود وليهين هل على رأوك على إني متدر حيان فتح ماغا ويقول ناقي هاي هريال نيمو ننكي لهورانا ناقي هاي هريال نيمو ننكي لهورانا ناقي هريال نيمو ننكي لهورانا هايبكي وغالغا هيالا وغاديني أول بان وقدارتك نقضي وهانتك دارو أول بان وقدارتك نقضي وهانتك دارو قبرني مويني هولنتو هبان روسي يساقون أنتي وضن بعدين نرى هورينين على عديري nimankii sanado hinjiranoo intaa ayaa tixdaan naga soo gaadhay sida muuqata waa tix gaaban si aad u culus waxaan muddo isweydiin jiray ma tahay niman masti ah oo haddana xidid ahay tixay mudan yihiin waxaa sukay qaban waayey hadalka halac fududaantiisa iyo yaabya noo keena iyo tixda Cali Sharmaarke culayskeeda muddo haddaan saa ahaa ayaa waxay soo gaadhay sheekadan soo socota waxaa la sheegay Axmed Buraale markii uu ragga urursanayay doonayay inuu qabyatago raggii uu damcay inay raacaan waxaa ka mid ahaa nin gabayaa loo oran jiray Ismaaciil Qoorleexo ogaadeen hore Cabdullaahi oo maalin guuraho aad geyigaas caan uga ahaa ninkaas ayuu damcay inuu raaco oo uu ku sirtago ragga uu ku sirtagayo uu ku darsado uu ka diiday haddana uu ku soo noqday oo wuxuu ku hunguri geliyey geela yaradka ah ee kontonka halaad ah ee uu wado ee uu hubiyo geyn doono marka uu bixiyo oo laga gudoomo waxa loo soo celin doonaa 25 halaad oo magacooda la yiraahdo ama hidaha Soomaalida yarad sooran 25 kaas baan waxaan ka siinayaa buu ku yiri 10 halaad Ismaaciil Qoorleexo in adeer uga raaco hubiyo raaco gabadha la doon Ismaaciil Qoorleexo wuu diiday wuxuu yiri geel nimanka Majeerteen la siiyay oo ka soo noqonaya aniga inama muuqda ma dhici doonto ilaa wax siiyay wadada ilaa la kuusanaya safarka iga dalgali maayay meesha geelka soo qaaday maayay waxa la yiri gabaygu tiriyo gabayga waxa naga soo gaadhay haaneedka uma laabi karo geela hobayooda hurdaba waa ku keenaa ilaahayba iyo laane haydaarto caafimaad ma qaba waana hodankaasi habeenkan dhashaa ila socday halacay waaba
ولين عارف اللي هذا القي قال لي يقينوا حوليها يقول على قبصه وحو هذا اللي نسبوا أتصبوا متداروا أنا قد ما يوصل أسكسر عليه حديث اللي جوري وحو تجي لما قال الموضوع كده لما قال الموضوع كحسته وحيبين لا بحلو لما قال الموضوع وحين غير تبقى يحلو حركة استوى عليان ليه كلام كودي وحكايتني markaasuu leeyahay ninkaasi waa hobyare ma tegin meel kale lama tegin ilaah baa sii caafi ana ilaah baa isiin karaa marka hawkarka iyo waxa igu wada iga dah halka waxa la yiri gabaygaas iyo hadalka qoor leh ayaa nimankan guurdoonka ah ee hobye tegay Axmed Buraale horsoo ka sii horeeyay ka ayaa cali sharmaarkay ka ayuu maqlay kaas ayuu ka xumaaday gabaygan uu tiriyay hadda uu tiriyay cadeere iyo nimanka xiriirka ah uu kaga arsanayay ka hore leex ayaa leeyahay waana wax maanka gali kala sheeka mangala tixdaas cali sharmaarke jawaabta ugu horeysay ee ka soo noqotay waxa iska lahaa Allah u naxariistay gabayaagii loo oran jiray Qamaan Bulxan qamaan waa ogaadeen waa reer Cabdillah oo waa reer Xamdulla nimanka la yiraahdo bahamagan ayuu ahaa wuxuu ku qorayahay hal caleeray Axmed Buraale iyo nimanka loo gabiyay qodobka loogu gabiyay marka sidaas ayuu سوري كمان أحدان كيرا هذا يجابن هو كتسيها يقول ما نصدو أي سليو يصير بقول على هايو حكره هو وين عنك تبيجا وين حاسنا ولا رجع وين البرحان أو تبيجا شعير تاع ترى أنت كذا تدين كذا قبل اللي رجع من لا حد هاي بتشان كامل ذكاية ولا على حيانا كره هو وين كمان مركا تبيجا كذا ما هي نوحها كم لقطة nabad iyo colaad geeyigii iyo wadankii uu ku noolaa xiriireen wuxuu ahaa xilligaas oo ahaa waqtigii dee uu noolaa wuxuu ahaa in daraawiishta ka soo horjeeda oo iyaga iyo sayidka qoyskooda waxay ku culoobeen arrintii la oran jiray kala kacay buldum iyo buldagooye ayay ku culoobeen markaa halka ayuu daraawiishta halkala ahaa gabayo badan oo ugu jiray sayidka inkastoo markii dambe 1920 markii ay Taleex iyo Nugaal ka soo jabeen daraawiishtu oo xagga webi ay soo aadeen ay caro ogaadeen fariisteen qofaxri oo kamid ahaa qamaan ogaadeen ku noqday daraawiishtu markaasna wuxuu tiriyay oo sayidku xakaayay sayidka soo arkeen sayidka ayaa gabay yiri maalmaha kamid ah markaas wuxuu tiriyay gabay uu isaga ula jeedo oo iska cadaan oo Soomaalida dhexdeeda ah caan ku ah wala in rago tare adduuntada oo ma aha sida uu la jeeday ayuu tiriyay qamaan maalinkaas wuxuu ku badbaaday Qamaan Bulxan wuxuu kaga duwan yahay asagii kale ee gabi ogaa xilligiisii waxa la oran karaa waa gabayaagii murtida shaaca oo xikma marka gabay kasta uu leeyahay waxa ka heli kartaa murtid balaaran oo Soomaalidu ma aad ugu mahmahdayo iyagoo aan aqoonin qalan leeyahay ay gabaygiisa hadalka quruxsan maalinta ay wada hadlayaan ama ay fagaar isugu yimaadaan waxa kamid ah iyadoo badan aan la soo koobi karin ayada nin baa kula dayday daalna ka badan aan doonayn inaad sanadayna ay dadkuna moodi دول ولا صعدان وحط حصانين دلنا ما لها آخرها دي لو كتاب زيتي وكلها مركز وكيلها أنت العنا يويلتها على عصور على وحب على الكمية بدي عايز لقاعد جوه على بكمية يبسده دي كان عدل كيس بدين أو دلال كمركز وكيسوس كده مركز وكيلها وحلا كلام غرض جا علم بدو وين سوى إلى دون هيو عمل كده داعي بس هو كان المدن هي أنا عصوا قاري كمان نكاس وحاله وحلا يجي كل يسأل بقول يستدي إلى بعدك هي من الإسلام غيره جاهي ودلي حكاس كلته هذا تحل وجوه بقى على سلمارك وتح حوجا عبسوا أي كم وقته وليه هي النجار كله يلو هذا البكتين قبل أنا واحد سنة واحد الصراحة كمان هذا لو ما نجابينه تذكر عن روح سنة فجاب إيه سيرك بقى سيرفت سنة كله هي حتى قبل ما سيرك الحمد لله أنت يوم أنت يا سيرك سيرك كل عليه ويلي يروح على عقلاء أنت أحد يعني كوزون أيام حيسين وهذا ما تصرف هذا كعبته لبدا حلال أيوة ليه لبدا استقبل كره على سلامكم قمان بلحن هل قال علي سلامكم نتيري وخفي بين هل قال علي سلامكم نتيري وخفي بيني وحبان هليك ونتيري ونهيبتي هرانك أيو فانكو وعيد كالادير هل كان علي سلمالكم نتيري وهو في بيني وحبان هليك ونتيري ونهيبتي والهرانك أيو فانكو وعيد كالادير اسكو هلين
بل قد حاجذاك ذذلو اسكورين بل قد حاجذاك ذذلاني قبني مودي ودانته هبا لقوسيه محاد وتيري والمرتي هيري بنت عزيز هلكتي ميلا هشيقة بريس بريها شركة هريا هذودي لنبرني ذا لقوها قوغايو هشقو ذا عديو لتيقا كروس كاحن واي هبكو دعايو قبران هكي لك قوينين هسا وديرو وليبا إبا شوائيلي لحظة نبيو شقاحن ولا لنبوياني إيا تلبت عسكاري أنا باقلين يحبكيني مجرتين حبنو قولان ماري هذا الكنوداي حرتي وحن كنا حيث وحميدي قسدا موذاني إذن كايسني ماذا قولي هلعو قاديني إيقنا ما إخلاص ذات هذا قسرتيني وليانا لا هوري يعيدو سو هذا الأفوام هاوي قمان بالحن وقتها kaasi wuxuu ahaa qamaan labadaas dhexood ee la isdhaafsaday kolkuu maqlay waxaa dibadda ka joogi waayey oo isa soo kilkilay cali aadan gorayo waa cali dhuuxo waa dhulbahantoo waa garaad faalaxo waa reer cali geri reer golod nimanka la yidhaahdo golod xisi ilaa hadda gabaygu wuxuu joogay cali sharmaadka iyo qamaan ama haddii si kale loo yidhaahdo masheerteen iyo ogaadeen cali dhuux markuu kusoo biirayse silsiladii waxay noqotay harti iyo ogaadeen على دوح أيه هفتنمذو كينتيو هفتيجا أيه كرأه على اللي لبا بهذا بقى نعلي يباود بلعك بقى نعلي بقى وحي تحت والبهانتيو قيس الجولة اللي بانك شيء وليك على باود بلعك نوع مشيرتين قديش شيء وصل جلي هدي اللي دونا صدق لا حبر مشيرتين أيه بيسكوي هذا على دوح هو كتير هدي جوبي سنة شيء وتير وين أو كم تحت تير كمان صار صومالي ده فكروا أهانين علوات بدن أما ندولة لعجيرة كده ذالي أجايو جور والبا سو أسرق هذا ندولة شيء بحنا ولي لا يقان قبيا واسمها كتير كنا تاريخي وحوانين إسرائيل سيد محمد أي آد سو يقيمين سقطاس أيه كل شيء وحنا أحد واقوس كذي سيد محمد عليه هو سيد محمد هو يدي 10 سنة مكان هو يقول له واحد غير على الجريء غير خيرنا كثير عيب marka asaaska daraawasheed iyo dhaqaaqa gobolnimada sayidku uu asaasay cali dhuxbadowgiiba uu raacay sidii ay yeeleen qoladii ay uu ka dhashay hayeeshee wax yar kadibba uu ka soo baxay isaga oo qoonsaday kala dambaynta iyo nidaamkii uu sayidku xarumihiisii ka sameeyey sida gabayadiisii dambe uu ku sheegay wuxuu cali dhuux u jeelay jaantaa rogantii reer miyigii soomaalida marka ayuu isaga soo tegey markaas ayuu af iyo adinba sayidka kula diray wuxuu isku dayay reer cali gari oo ciidanka daraawiishta sida dhaxad u ahaa inuu ka soo saaro ilaahay asna uu ku guuleystay inkastoo rag waaweyn oo Ismaaciil mira oo kala ah ay docogaysigiisii ugu soo loodsami waayeen ingiriiska iyo Soomaalidii u adeegaysay markii ay 1920kii xarumihii daraawiisheed ciidamada xoog gale ku soo duuliyeen ee ay dawladaha ku baabi'iyeen ee mujaahidiintii laga golroonaaday wuxuu cali dhuux ahaa gabayga digashada ah ee baan ninkii sayidka u tirin jiray waa taxdiisi ahayd waa lagu digtaa duul hadduu ku daraan jiray daaduunka oo maxamed qabo waa ku diirsaday baldayaay wadaadkii wakaasii dabayshaday inkastoo waayadii dambe uu daoobay uu ka qoomamooday kana soo bakeenay cali dhuux allaha u naxariistay wuxuu dhintay 1960kii isagoo markaa 69 baarka ka jaray dulucda taxdiisan koowaad ee silsiladan hal caleero uu ku leeyahay daan soo koobo wuxuu kula hadlayaa qamaan bulxan wuxuuna kula safanayaa nimankii reer hobyoode ay iska soo jeedeen wuxuu leeyahay mashaarteenku waa gob waa niman la xaday oo waa niman godkoodii biyo u galeeno waa niman eebba balaaya tusay qof aan loo dul qaadan karin markii looga dhigay waa hal cadheere oo wuxuu leeyahay hal cadheere iyaga mooye cid hayn kartaaba ifka kuma noola qamaan ayuu markaas ku oranayaa idinka oo la qola ahiba haddaad aragtaan harac oo idinku soo socda waad ka naxdaane maxaad hartiga ugu haaraamaysaa haddii ay iyaguna ka cawdeen wuxuu yidhi cali dhuux inkastoo baruur la arqiyo halaaba loo geeyo
inkastoo halloo qaloo hilbaana halaakan loo keeno marna niman hamuun beelahayn lala heshin woy hamba laguma doodine haddii uu ka wada hinsto uu hadalla yahay seedigay laguma hiifeene haya islaama horeen halac sidii hawaydoo kale idinka haruur bixintidiyo buriyo hashaare beriis heshi lagu daadiyo edda ka casaaday uluulay badnaydii hobayood hariima loo keenye hilbasiiye hamana u shuubay halab karuurkeede habeenkiiyo subaxdiiba wou hagar la'aayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshine habeenkiiyo subaxdiiba wou hagar la'aayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshinayne ma jeerteen hablooda xarago horiiba u tagaayay ogaadeenba waa hiifayaa hadiyo goortoos hagagabaan daynay qamaan hor alla aadkaaga halaxoo isdheer laeg hadduu hogob ka soo muuqdo idinkoo lahaybiiba waad wada habaartaane harti maxaad ku geeli eebbahay horor hadduu keenay warankaas oo ogaadeen ku maqan ama qamaan ayaa waxaa u raacay mid kale oo uu ganay nin gabayaaqo seeroqbiyood ahaayo la oran jiray gooni cabdixaaji waa casmaan maxamuudo waa nimankii seeroqbiyoodka ahaa gooni cabdixaaji inkasta uusan sida cali dhuux iyo qamaan caan u ahayn haddana xilligiisii ma uu ahayn labadaba nin wax u ogaa wuxuu ahaa nin gabayaa wuxuu ahaa ninkii sayid maxamed lagu baleeray gabayga waxaana dhex maray gabayo halxiraala ah oo ay soceliyeen oo cala ayaa sheegay iyo cajabe waa cajabe sheega ay u yihiin dhextaalo gooni cabdixaaji wuxuu ahaa nin ku hadla had iyo jeer afka sadanada reer kenadiido markii gabayaysaydka uga yimaadaan wax ka sheeg ah ninka ka jawaabi jiray ayuu ahaa marka wuxuu kaloo xaanku ahaa wuxuu ahaa nin faan badan oo wuxuu leeyahay geeraar aad uu ugu faanaayo uu leeyahay haddaan hobyo joogo oo reer hebel ahayo ilmo hebel aan la joogo oo dadka oo idil cid aan wax u ogaay lama arko xataa ninka aan dilo mag layma weydiin karo bahalka ayaa iska cunaya geeraar caynkaasoo rutiyey waa faan xabu wuxuu kusoo dhameeyey haddaan dhiidhiya maanta oo dhilfo oo aan wax laayo intaan dhoobta suldaankiiyo dhalin reer maxamuud iyo ilmo yuusuf dhex joogo dafoor wiilaan ka joogtay dhurwaagoo cunan mooye midaageelkama dhiibo tixdiisan kolka wuxuu gooni ku leeyahay ama uu kula hadlayaa nimanka la yidhahdo ogaadeen iyo qamaanba marka ugu horreysa wuxuu leeyahay tixdii cali salmaarka kaftan bay ahayd maxaa ogaadeen ku soo kiciyey oo ay kaftankii kaftan ugu qaadan waayeen inay dhab uga dhigayaan arrinta haddiise haatan dhab laga dhigo wax martida ay siiyaan oo ay hadda ku faanayaan qaban ku faanayaan miyaa jirto oo maba haystaane dii alla kuu roon yahay bursi ama masaga ama haruur oo ay mataqaanaa ka duulaayo aan la kortigayn oo la iidaamin weeye waxay martida siiyaan way annagoo kale yihiin markaas wuxuu ku faanayaa isagu maadaama ay hablooda yihiin xerna joogaan yani tibista iyo xeryaha qamaamadan iyo dii alla kuu roon bariiska kala nooca iyo waxaasoo hobeeyaala laakiin aan xero ogaadeen oolin ayuu ku faanayaa marka wuxuu leeyahay waxba ma haystaane inaad dadka u qashaan mooyaane markii marti idin timaadee haddayna xoolaba lahayn maxaad ku faanaysaa tixda gooni halkaa ayay daahmata markaas wuxuu yidhi qarsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri qarsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri qarfa kulul rag soo maray hadduu irin qaraabaysto qaranka sooryada haddii laysu qaardaayo qabaycana laga buuxiyo qadama keento qabaycana laga buuxiyo qadama keentaane kursi qooro lagu soo rido qac ka ololaayo yaad qaar ka dhowsaan intii qoyska loo garo ee maxadkaga
وسليسان مرتيدا وبقريسو قابولي هذه بريس قالي لقو إبشي هريها قمام ذنبني لا قارك هورسارا قدر مرة بقى في ريح الواقلب كلول كيلا انت تقول على بحشال اسم قامي وانت تقول على بحشال اسم قامي قردين للفرعبان بدو كفوفين مدد كيدهم قالي حولواتك خطان ايدين بيقولي سيدا وقفكي دقيستي بدريمي كرم قولي واحد مداحركي سلسلة دمانسو إنه كيرا بيري markii uu xarafka dhaafka ka gabiyay iyada oo lagu wada ilaa xarafka hada ah marka taana waxa ku qabtan doona qamaan oo iskale gabayga soo socda labadaas waran ee gooni iyo cali dhuux ay ku soo halgaadeen markii laga loogu subay qamaan aad buu uga kululaaday waxa uu cadaatay xaajadiiba kaftan iyo xifaalaba in laga weynaysiiyay dagaalku inuu hartiga dadka yahay ayna isugu qayshadeen markaas ayuu tiriyay gabaygan aan marin doono oo si weyn uga culus ugana kulul kiisii hore ee uu cali sharmaarka ugu jawaabayay wuxuu halkan ka afeefanayaa godobta ay gabayadu dhali doonaan hartigu inuu yeelan doonee aan isaga iyo ogaadeenba maanta iyo badiba wax ka saaray xalay dhalayna ay ka yihiin midda kale waxa uu qoonsaday sida muuqata cali dhuux oo hartinimada masharteen ay wadaagaan darteed u soo iliyey markaas buu u sheegayaa inaanu ahayn nin uu garabkiisu bannaan yahay oo gabay lagu daaduumin karo wuxuu tirinayaa kuna faanayaa maansayahano wada maawi miiran ah oo ilmaadeer ay ahaayeen sida saahib qamaan iyo dubbad heerad iyo cilmi raaga iyo cabdi xirsi iyo shaywaal iyo qaar kale oo u darban maantii ay haad ka helaan inay warmaha maansada ku tumaatiyi doonaan gabaygan ayuu markaa wuxuu u sii dhiibay nin ay hilba ahaayeenoo la oran jiray guraaso xaaji cali oo madaxa carrahaasti markaa ambabax u ahaa wuxuu yidhi qamaan guraaso haweyse haddaad naga hagaagayso hawalalaama jiifay haddaad hilayga awsartood faraska insaha cudoon hedda kaga yeesho guraaso haweyse haddaad naga hagaagayso hawalalaama jiifay haddaad hilayga awsarto wad faraska insaha cudoon hedda kaga yeesho od horay u sii mari waddadu wahad qara weyne calaqa iyo gajada haddaad hoyata od dhaafto majeerteenku waa hodan yahay halayga gaarseey hidda boqor ma sheegine kuwaa midigtaaneeda haruubunu ka raaxo kuwaan horayba eedownay hogta goodan biyugu haraan horinta reer yuusuf warmaansadu huqday tariyaasaan lagu heshin doonin alaagii ka dhaaca labada reer oo hurgumareeb maansadu huqday tariyaasaan lagu heshin doonin alaagii ka dhaaca labada reer oo hurgumareebi inaanan hortii hore lahayn una hoggaan jirin baloogaada wataad harta wiilkurta taho afarta igaashae miyaan kala habowsiiyey hadama ugu dhigay shiksigii tagabsi waa ceebe ma hawadiyey waayaha kan waa igu higaagnaayee sida gooni har lama jafeelin cadmawjeexay halna waxaan ka idhi dhaashadu hanaane ceefaanay hiraabiyo awiiyo intii hilib islaameeda halow kama tagana wiil intuu hawka oran geere hidda xumo bahyaaqub nin ogyahay mafaaqido hareer waxiga xiga saayido ilaadii buuxdaaye dubbad hiiran hee laguma reydin hanadkii dhuubnaaye cilmi raaga iyo yuusuf waa hoos dhigii maqan xasan iyo cabdiina waylahayd hariisa maysaanay waalnaa horintii lahayd hadalkii loo sheegi
حساني عبدينا وياهي بني سميساني شي والله انتي راهيد هذا الكيلو الشيقي انت سوفك ايقا قوضا اما سهداني والله قرديقي مال انتو هرب كتيتو هلنا وعن كايري وعن فعوتون قوري شيرك haddaan heegno gool weynasaan neefdhaan u hagaajo waxaan anigu oo yidhi misaana bilaadhan loo harto hunguraad cuntaana bidnaan laga hamungoynin hamba intaan ka sugiye bahay hodaankii weeyaane ilbaduufa nogama duwana haragugaare hunguraad cuntaana bidnaan laga hamungoynin hamba intaan ka sugiye bahay hodankii weeyaane ilbaduufa noogama duwana harag ugaareede idinka u hardaamaye anfaco malaha hawshaasee warmaadhay sataan waxaad dhigteen dirigtii harwey amaan buu hayra ku naxariiso tixdan soo socotana waxaa iska leh badiir qamaan arrin iyada oo halkaa maraysa iyada oo gabayadii la isku qoonsaday oo maansayahanadii labada qolo mid waliba uu dhab isu ilaalinayo cali dhuux safara soo galo wuxuu kabaha u iladay haradigeed iyo carro ogaadeen oo uu mindhisma ku ahaa ama inan la yaal sida dadka qaar u yaqaaneen wuxuu ka qabay nimankii uu gabiyaayey reer magan warfaa waxaa u dhaxday haweenay la odhan jiray miheeye cali oo iyadoona reer magan ahayd oo reer dalaal kasii ahaydoo qudheeduna gabyi jirtay cali dhuux oo reerkiisii ama bax u ah ayaa haddaba habeen wuxuu la hoyday gabayaa ay isku qora ahaayeen oo la odhan jiray bariir qamaan waa dhulbahanta oo waa garaad faaraxoo waa nimanka la yidhahda warfaa axmed kolka ninba waxbaa lagu xusuustaa bariir waxaa lagu xusuustaa tixihiisii hiddaha hambada iyo dhaqan wanaagga martida ku saabsanaa martida oo wixii lahayo loo huro ayaa muddo dheer ka mid ahayd dhaqamada waaweyn ee bulshadii soomaaliyeed ee reer miyiga ahayd ay u ilaalin jirtay sidoo kale martidana waxaa laga idi jiray kolba wixii loo geeyo inay hamba ka soo reebto dumarku markii ay wax soo hagaajiyaan ee martida lagu sooro waxba inta badan ma reebtaan meeshana wax la kala reebaaba ma ool marka wuxuu dhaqanka soomaalidu ahaa gasiinkii lagu sooro inay raggu wax ka soo hambeeyaan oo dumarkii soo wanaajiyey iyo reerka dhammidii oo laga yaabo wax alla waxay haysteenba inay martida soo hordhigeen wuxuu hiddaha hambadu ahaa mid ay bulshada ugu fiirsato oo ciddii ku xadgudubta lagu xeebeeyo xataa waxaa loo fiirsan jiray xeerihii loo geeyey sida ay martidu wax uga cuneen sida fandhaalada loo darsaday iyo meesha wax laga qaatay intay hoos u qodan tahay ama geesaha iyo wixii lamid waa dhaqan hadda aan jirinoo soomaalida dhexdeeda sida aan filaayo aan ku soo dhowaan bariir had iyo goor arrimaha hambada ayuu taxa ka marin jiray wuxuuna u gabi jiray qolada garxatisee la yidhaahdo ciidagale ma aqaan wax uu ku maagay hase ahaatee waa ninkii ku lahaa wad ka daran wallaahi cabdo weel la mariyaaye afarteeda waaxood hambadu waafi ha ahaato waxya reerka lama dayn karee wiiqan ka ogaada sadohaha wareeriyo kuwii waday u roonaada wasigiinu gubayeen oran waalidkana caayin nimanba dadkood waxa ku raray weecan harahayne wax ku reeba sida ciidagale ha wablaynine mar kalena waa ninkii ahaa fandhaal gurada loo buuxiyaa falxumuu tariye kol haddii fataax loo darsado fadalku weynaaye farsamaysta sida ciidagale ayaan la faambiyin bariir wuxuu ahaa gabayaaga caynkaas ah sidaan soo sheegnayna waxaa habeen soo martiyey cali dhuux oo markaa ogaadeen amba bax u ahaa waa berigii korkuu ka jarmaadayey ayuu kula sii ballamay tixdan soo socota ee tixaha silsilada halac dheere kuwa ugu caansan lagu tiriyo isagoo haddaba ku boorinaya inuu iska ilaaliyo wax kasta oo gabay isaga iyo qoladiisa u soo jeedi karaya ayuu bariir wuxuu cali dhuux ku yidhi caliyow hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado caliyow hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado caliyow hagaagtaye haddaad hilinka dheer qaado hawdka aad maraysiyo cilaadu waynaala heshiise jidku waa habeebe haddaad urisada dhabta ogaadeen hundoodiyo haddaad haradige gaadho ogaadeen hundoodiyo haddaad haradigeed gaadho
haddii lagu hormaro ardaaheedan lagu geeyo wadkaadii horteesoolyo waa kuurtiraane halabca neediyo haddii hilib lagu keeno wadkaadii horteesoolyo waa kuurtiraane halabcaneediyo haddii hilib lagu keeno habwanaagsa yeel dheefta waa laga hambeeyaaye ama halac ku dayo waa wixii hoday ogaadeen allowma la ballamay muxuuse ka yeelay koldhow sida inoo caddaan doontaa ballantii iyo gabaygii beriir dhaga awdan kuma dhicina dhaga furan bay ku dhaceen cali dhuuxna goosdambeedka ayuu ku qabsaday isaga oo aad u dhiifoon ayuu xero ogaadeen tegey garabtii dambe isaga oo reerkiisii ku carraaba ah ayuu la kulmay nin la odhan jiray axmed carab afey oo qolyaha uu xididka la ahaa ka mid ahaa siday u sheekaysanayeen ayay galabgaab noqotay markaas buu cali dhuux meeshii ay fadhiyeen ka helayshayo si uu reerkiisii ugu dheelmado ha yeeshee axmed baa ku dhegay oo faraqa iska laalaadiyey wuxuu ku yidhi calow reerkayga iyo kaagu isku mid weeye oo wixii koo yaalli kanba way yaalliin waxba guuraha ku fadhiinay halkanba isaga hoyo oo caawa nala joog cali dhuux dareen baa hadalkaa ka galay ballantii badiid baa ku soo duxday siga qudhiisu wuxuu ahaa nin mar walba digtoono aan damanayn wuxuu is yidhi sow caawa adigoo reerkaaga muuqdo intay reerahani cunno ku soo hoos dhigaan lagugu gabyee sidaana ku ceebowday markaas buu iska soo taagay durraansigii iyo docodaysigii in carab afay tix aad u culus ayuu garabtaana tiriyey taasoo hartigii uu ahaana uu ku ammaanayo nimankii ogaadeen ee u dhex joogayna uu ugu daraanayo duuceedu waxay tahay anigu halac oo kale ma ihi meeshii qodaxdu iigu dhacdo iskama habsado oo kuma hoydo sidaa darteed axmed carabow raalliga ahow wuxuu iloobay madaha xididkii uu la ahaa waxbana uma reebin tol iyo xidid markii la yidhaahdo dhaqankii hore ee soomaalida mudnaanshaha waxaa iska lahaa tolka wuxuu cali dhuuxna ku ra'yi ahaa ninkii gabyey oo yidhi waxba yaanan xidid waa sunne seediyaaldayne oo hadday cibaadadu faral iyo sunno tahay tolka iyo xididkuna waa faral iyo sunna oo tolka ayaa faral ah xididkuna waa sunna wuxuu yidhi cali dhuux axmedow gabwaadimadeed hadalka qaarkiise axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiis axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiise hogagelinta hasa waxaadna hoojiseen gooxa hoy baaban leeyahay aroos ku habbantaaggiisa isagaba hiraab iyo durduur hari mawatiile isagaba hiraab iyo durduur hari mawatiile haruur waa diyaar halaaba gool waana la hubaaye canaha hareeradu ka badan haraada xeeldhaaqe haddaayaba wax waysiin lahayd hagaarladayde nin halgaaban oo hidhow adiguu hadaysaaye marse haddaanan hawraarsan iyo ha ku odhanaynin maca dacalka ii haysataa waa habeen dumoy ninkii haybadlii maanta waa hogeeyay meeshii halmaan kaga jiru hanad ka tiirsaayay afartaa hadii lagu ballamay hawma kaga sii afartaa hadii lagu ballamay hawma kaga siiye hambararaqdee qafle waa kala hawoodaye hafti qamaan sheegay iyo haba waa mawdiide sidaa ayaa hoosyada ma waan kala habow siiyey hogsaarkeeda layskuma baashay haybad ma u yeelay hana waxaan ka idhi anigiiyo heerinimadayda runba hadalku inuu ka yihiyo ihollinaysaaba hog ha kuugu soo dhaco haddaad ku hindisoonayso haweenkiio ogaadeenba waa hoos ka garabe
ogaa kugu soo dhaco haddaad ku hindisoonayso haweenkii ogaadeenba waa hoos ka garabeede meeshii habeen ugu dumay habas yidhaahdaanino hooyo anoo reer iskale waanan xumo mar haddaan hiiga sol ku xiro waa halwaanayaaye waan la helay heshiga beri tilib la gedeeye iyo hadabka dhulkeeda oo hama laga buuxshay habkaad yeeli leedahay haddaan kugu hoggaan raaxo haweey kullaytiyo midgaano reeba noqon habkaad yeeli leedahay haddaan kugu hoggaan raaxo hawey kullaytiyo midgaano reeba noqone walaygu wada oballaynaysa dhaantadaay haweenkiiyo xaruurtaay odhan hatuf baa yimide hareeraha intii aya garooya han lay helanay dabadeedna waa lay horayn halacsidiise ninkii haybadii manse waa hogayahay meeshii halmaan kaga jiru hanad ka tirsayay afarta hadii lagu ballamay hawma kaga siin allahu naxariistee sayid maxamed wuxuu ahaa sheekhii asaasay dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka soomaaliyeed ee daraawish loo yaqiin waxa ay sokeeye iyo shisheeyaba u qilsan yihiin inuu ahaa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed taasi waa xagga siyaasadda xagga maansadana wuxuu soomaalida ugu jiraa halkii uu william shakespeare ingiriiska ugu jiro dante alighieri halka uu talyaaniga ugu jiro iyo abutayib almutanabi halka uu carabta ugu jiro wax badan ayaa laga qoray waayihiisii maanso iyo taariikhba sidaa darteed halkan ku dheeraan mayno sayid axmed wuxuu ka mid ahaa maantayahanadii silsiladan harcadheere ka qayb qaatay ha yeeshee sida loo malayn karo ugama u qayb qaadan markii laga eego xiriirka toleed ee labada dhinac waxaa loo fili karaa inuu qamaan bulxanhiil u yahay isaga oo sida qamaan isaguna ogaadeen u dhashay hase ahaatee taasi run maaha inkastoo ay mala habboon tahay wuxuu sayidku ahaa qadiyad aad u culus nin dusha u ritay sidaa awgeedna ka hanweynaa qabiil qurax in loogu abtiriyo had iyo goor maansadiisu waxay u adeegi jirtay qadiyadda daraawiishta iyo jahaadka ciddii daraawiish la jaarihi gabayadiisa way ku ammaanayd ciddii ka soo horjeedayna way ku cambaaraysnayd ciddaasi nin koox ama qolo tii ay doonto ha ahaatee diiwaankiisa gabayada ee daabacan waxaad ku arki kartaa qof ama qolo mar ku ammaanan mar kalena ku caayan taasina waxay ku xiran tahay xiriirka uu qofkaas ama qoladaasi ay daraawiish la lahayd maalinta uu gabaygii sayidku tirinayo ogaadeen qolyaha ka mid a oo subayr cabdille la isku yidhaahdo waa reer isaaq iyo reer cabdille ayaaba ka mid ahaa tolalka soomaalida ee weligiiba uu colaada weyn laabta ugu hayn jiray taasina waxay ku sal lahayd dabayaaqadii qarnigii 19aad markii inta uu dhex tegey uu ka doontay ciidan uu jihaadka ku galo dabadeedna waa tii la iskhilaafay gurdumi meesha la yidhaahdo ee haradigeed ku taal waatay shirqoolka ugu maleegeen waatay isku dayeen inay dilaan dabadeedna intay isagii moodeen waa kuwii dilay wadaadkii la odhan jiray aw cabbaas ee ay wadayga ahaayeen kala kacee gurdumi waa tuu dhacay ee la kala ufooday isaguna waa kii gondabooya ku dhigay ee ragga badan ee doorka ah ka laayay iyaguna waa kuwii kusoo duulaye daraawiishta badan ka makalay kuna qasbay inuu nugaal dib ugu noqdo sanadkii 1900 waa nimankuu maanka ku hayay kolkuu lahaa sida garow haruur baan kurtood guran ogaadeene garmaamaha haddaynan ka dayn goor allaba jooga insha allahu waa gurahayaan sida galmeereeda guraasiyo ilseex waa la qaban gooshka haatana ee malahayga waa lagu galgalan gaanka reer dalale gaas baa ku caran reer subayr gobosho weynti waa nimankuu daraawiishta ku gubaaminaya markuu lahaa reer dalal waryaa doonayo duurlan bixinaya dad iyo duunyo yaa reer subayr damu ka siinaya yaa diinta ee biyo sharciga diladay oo raacay wuxuu dagaha haaruun ma degin ceelkii daratoole danoodsow guraasiyo ilseex deera kuma foofin sow daahirkii oo cabbaas dayn ku maqan maaha dayrtiyo dareecdaba ma waan la isdul taagaynin duntigii ogaadeen ma waan diiq la gelinaynin dooyada ma waan lagu simayn adale daanteed naarta la yidhaahdo saqara ee naaraha ilaah ka mid ah waa kii u bashaareeyey oo ugu bashaareeyey reer subayr nimanka la yidhahdaa inay kusoo socdaan oo ay dhergi doonto markuu lahaa ma subayr cabdiliyo inta diinta sidaysiyo intii toobadda sheegtaa ka subxaana lilaahi iyo saqaraa lagu geyn
وانا منكو كلها مركو دورنا حتى انا وقفانا يا اوغادين كو انو يحيو مركو علوحو كلا اسكا علنايو وكيلها اوغادين هدانا هيدد هو امر كورياي oo waxa baarkaan hida aw tahaasi ma hayabtisinay waxay gashaa odaya waaweyn hatiga qudooda ama qaybo waaweyn oo kamid ah ayaan ogaadeenka uga duwanayn maansadiisa ayuu ku cambaarin jiray markii ay danta daraawisheed sidaa ku jirto markii aysan ku jirin wuu ku koolkoolin jiray gabaygiisana hal cadeere ee soo socda wuu kula daadagayaa waxaase jiray mar kale oo uu si la yaab leh gabay kale ugu ammaanay oo isaga oo markaas jecelnaya gabayaagii la oran jiray cali jaamac haabiil ee habar awale ciise muuse oo hatiga saxiixiisii midkood ku caayay isaga oo cali jaamac ka celinaya tudicyo koolkoolin ah oo gabay uu tiriye ku jiray ayaa waxaa ka mid ahaa oo hatiga ku ammaanayo xuseenow ninkii hagar yaqaan waa habaar qaba ee nina hayagi maayee run baan heeg u mariyaaye hatinimaan aqoon baa ku yeeray hadalka qaarkiise waa niman hormud wada ah iyo hanadyo waaweyne waa nimanka haybtoodu tahay haashirkaa kore ee waa nimanka deeqii hambaday hibe ilaahay waa niman gobbaa lagu hostaa lagu hagaagaayo waa niman haleeliyo horweyn heelka buuxsadaya waa niman xariiro huwan oo huga ku laafiyoone waa nimanka haashaarka gole marada haafayne waa nimanka dooyuhu hindiga uga himbaartaane waa niman haruur iyo badiis hoyga loo dhigaya waa nimanka aanfuuqayay timirta hoostaale waa niman hingaar lama watee haybad guursadee waa niman hablaha ay qabaan hararcaleeyaane sida heegadoo curatay bay shuqul hilaacaan marna waa kiisaas u koolkoolinayay kolka haddaan usoo noqdo gabaygiisana hal cadheere ee inagu soo fool leh waxaynu oran karraa labada qolo mid uu la jiro cid garan kartaa ma jirto ogaadeenka iyo hartigaba wuu ugu daraanayaa inkastoo laga dareemi karo xoogaa xodxodo ahoo qamaan iyo qolada uu ka dhashay ujeeda isagoo jeclaa inay daraawiis ku soo biraan wuxuu ku hungurigeliyey geel badan iyo xoolo aad u fara badan oo uu isagu siinayo una hayo qoladii ay aadeen ee reehobyoodka ahaydna aysan u hayn iyagoo wax ma haystaan buu leeyahay oo anaa la dhacay oo xoolihii ka dhameeyey bal maxay ka dooneen markaasuu leeyahay aniga hadday ii imaan lahaayeen anaan marna hiif iyo haaraan aan laga maqleen una gabiyaan markaa wuxuu yidhi sayidku hungurigu subayr wuxuu ka sayday hogobyo shaydaane mar haddaanu hedheer lahayn ama hoggaan ceja wax hubaala inuu kaga iman haraadii ciide hawiye iyo daaroodba waa haybka gooniyahe waxaan habaaro ilaah helay boqontiye bal maxaa hobyow dhigay arligu kala hoyadroon hartigaba wax badan baa ku nool hilibugareede koluu hilaadoo kale noqdo ibilka haneedo huwan moo u kaxo kuma qadeen hodan qabeenkii nin hamuunta ka biin hayaa lagu hadoomaye mar hadduu hadaadu muxarago haybadeed malahe mawaysoor yadiin heli karaan ma hagranayo hamba kaa sugyaa ama hohay kugu hagugyaaba antii nimaan lahayn looma tago holaaxa jiraade hawayda aan dhacay maxaa hatufka ugeey daraawiixii fiirinimay wax badan hanaatay reerkiisa waxay lahaan fariireenba waa huba doorale ee hada qabiil nimaan ahayn hiba miyuu dhiib nimaan laysoo taagaynin waa lagu habsoobaye harga waaxidii baan ku jiray tuugahaysale ee hanqarkii rasaastaa wadnu la halcanayo iyaguba halaagan baday lahun dhurayaani warguutooyinkii loo humay hadafka raaceen ee ma way hidin karayaan anfaco heliba mayo damaanow hawaada meelsan baa lagu hagaajaye idku waa idkii idin khatalay haraadigeedkiiyo hanankiina nimankii qiin weydinkii hura haddaad diinta soo haybisaan kuma hungowdeene hadan waxaa idinku guuray hagafkii gaabnaayee hadalka keena diid buu maqlaayee hayad kale mo hadeer iyo hadeer golqallaa halaaba keenaaba hamaan idin suubilaha halabka duulkeeday haleelo
yinka idinku filan hotanuga hadeeriyo hadeer golqalla halaba keenaba amaan idin subigaha halabka dhulkeede haleelo yinka idinku filan hotanuga anaan idin halayan sidii hogii bariye hareertiina waan dhigi waxaad ku himbilyotaane intaad higis dan soo qaadataan halaacna soo raacsan ilaah ku naxariiso waxaa sayidka xigay ismaaciil mire oo waa darwiishkii weynaa ee gabayaaga ah ee raggii gobaysana isaguna ahaa marka waa dhulbahanta oo waa reer caligeliyo nimanka la yihahda reer guuleed waa nimanka u cadaacadahaya sayidku intay ku jabeen jahaadka guuleedku wuxuu noo ahaa guurtii loo helana nimankii garaadada ahaa waa gadow jabaaye ebow sidii gaanti mara waa la gaacsaday nimanku dhaawey marka ismaaciil yaraantiisii ayuu daraawiish ayuu la ambaqaaday 1920 markii ingiriisku uu cirka iyo dhulkaba ka soo weeraray oo halkaa ku tabiyeyna raggii wuxuu ahaa halkaa la soo gaaray waqtigaas marka cali dhuux ayaa aad isugu dayay inuu daraawishaan meel hore kusoo sheegnay inuu daraawiishta ka saaro oo sidiisoo kale markaa uu ku guulaysan waayey oo gabay uga teliyey oo cali dhuux u teliyey oo cali dhuuxa qudhiisa mar inta usoo gebiyey wuxuu yidhi waa laydin sexray oo markaasuu yidhi ima duufsan sheekh maxamedkii duubka ee xiraaye anigaaba diinta iyo sharciga laygu daabacaye adna reer sawir daba gashay duxeha kaa raacdo waadin baa raacdu leeyahy marka isaga iyo cali dhuux waxay ahaayeen nima ilmaadeera marka waxaa jirtay mar ay shahaado isa siiyeen intay meelaha waayeen jaamacada iyo gurta suugaanta qiimeeyo oo shahaado siiya marka gabayo ay isu diraayeen baa cali aadan cali dhuux weeye ismaaciil mire intuu bilaabay ayuu yidhi ba'da maanso cali aadan oo bili laguu siiye bushimaha nin kala qaada gabay waad u badisaaye markiisa bawda gacalkaa jabtaad boogta danqadaayid markaasaa waxa u jawaabay cali dhuux isna wuxuu yidhi ba'da gabay ismaaciil miraa buugni ku ahaa ba'da gabay ismaaciil miraa buugni ku ahaaye bayd oo akhriyey weli ma oran yaa bedela kaase maantuusa runtii baalka maray bilax idin gabayo badan oo Soomaali u taqaan ayaa ismaaciil baa leeyahay kuwa ugu waaweyn waxa kamid ah gabayga la oran jiray anagoo taleexnaale qolka waa amaan duulaha ka ahaa koo fil dilay uu ka dul yani kaga warbixiyey iyo xafadfulin degmada leega waa inaan fariistaayo gabayga uu faadumo dhowre xaaskiisa u tiriyey markii ay iswaayeen ay ka calacashay gabayga la yihahdo ragga kibirka waa lagu kafaa kaa halo ogaan gabayga la yihahdo guguulaha gabayada tirada badan ee guwaabada ah ee diradiraha ah ee wiil yahow ilmaa eegatiba aragtidaas gabaya caynkaasoo tiro badan oo Soomaalidu aad u jeceshahay ayuu ismaaciil leeyahay ismaaciil tixlan wuxuu ku raacsan yahay ninka la yidhaahdo cali dhuux ayuu raacayaayo maadaama marka ayuu la daadagayaa nimankaa ogaadeeno oo uu leeyahay waa niman aan lahayn karin oo dee hal cadeera mara sidoodaba aan lahayn karin oo ninkii ay kusoo hodaan waa cayroobayaa buu leeyahay wuxuu ugu dambaysiinayaa arrintii hambada ayuu kusoo qaadayaayo wuxuu leeyahay hambada dumarku waxa ay ku noolaayeen ay ku shaqaynayeen heerka ay ku joogeen haddii ay hambada ahayd asii nimankaa ogaadeen hambadii ay soo reebi waayeen oo waxba aanay reebin wixii loo keeno maxaa ku dhici doona arrintaas ayuu tixda ku maamiyey haddana kaga jawaabayaa wuxuu kaga jawaabayaa si kaftan ah markaa kaftankii tixda lafteeda waa meesha ugu dambaysa aan ka dhegaysano wuxuu yidhi ismaaciil inkastaad xarago haybadeed ula habeen roorto inkastoo hilbiyo caanageel laga hiraabsiiyo waa niman haddii loo habrado hodanka cayrayn waa wada hangooljidanaan halina deeqayne hal hadduu ku haro xeraday dabahun baalayne harubgalka cadka ku naaban wau hundhurayo hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda heemarka weelka oo dhan iyo gacanku hayskiisa marna haddaanay urahayn habluhu way kaa jiri hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda heemarka weelka oo dhan iyo gacanku hayntiisa mar haddaanay urahayn habluhu way kaa jiriye ka hagaajeenagu waxay hawlku gaarayeenee runka waxa ku dhici waa guskii hogarka weynaay kaftankaa ayuu ismaaciilna ku dhameeyey waxaan xijinaynaa tixdii saddexaad ee silsilada uu ku leeyahay qamaan bulxan
qamaan burxan isaga oo aad u ceel qaba oo muddo uu hadalku u bixi waayey meel uu ka bilaabana garan waayey ayuu wuxuu maqlay in niman harti ahoo warmoogayaalaho aan waxba ogeyni ay reeraha ku dhex jiraan oo reeraha ogaadeen weeye waa cidahooda oo middaa ganacsato ahaa marka ayay maalin boqolo u tagayeen oo waxoodana ka iibsanayeen lana sheekaysanayeen maalinkii dambe ayaa waxaa loo sheegay inay kusoo beegan yihiin markaas ayaa waxa uu muuqatay tani inay tahay fursad uu ugu gabyi karo nimankii harti ee usoo geli jiray waktigii ay ku soo socdeen ayuu inta aqalka galay afadii uu qabay wuxuu ku yidhi nimanka soo socda ee harti haddii ay ku yidhaahdaan qamaan burxan ma joogaa waa joogaa de haddii ay ku yidhahdaan qamaan ma joogaase ma jooga ku dheh markaa ayay nimankii yimaadeen markay yimaadeenna haweenaydii bay ku yidhahdeen qamaan burxan ma joogaayo markaasay garan weyday wixii lagula ballamayo hadalkii ayay siisiiday oo nimankiina meeshii ayay iyagoo taagtaagan ayay kula hadashay markaasuu inta soo baxay waa intuu sugaayey taxdan tiri wuxuu yidhi habeen sooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday waa kuwa qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabar yaqoob habeen sooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday wayaga qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabar yaqoobe iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay horaa la geystaan iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay horaa la geysteen halmaanina sharmaalku ka yimi laguna hiifaaye helada dhexdeed iyo guryaha lagaga xasow ma oynin lagu soo hirto heelan baan ahaaye hadalkayga waa laga hayaa harada ciideede hawdka la marayaano hagaari waa ceebe ma ururan karo buulan oy timuhu herme ma ururan karo buulan oy timuhu hermeene waxaan heli waxaan haban karo haatan waxaan haysto higaygu wuxuu doonayaa inuu hibeeyaye namado hartiya soltamadada laankeentid buu yidhi qamaan burxan haddana aan ku xijiyo faarax caytame waa ogaadeen oo waa reer cabdille qamaan burxan bay isku qolan yihiin silsiladan maanso ee halac dheere waa gabayaaga keliya ee sida tooska ah qamaan ugu soo gudmaday waayaha faarax iyo maanse wixii uu tiriyeyba waa nagu yar yihiin amaba waxba kamaba naqaan gabaygan halac dheere oo ah midka qura ee naga soo gaaray isaga qudhiisa si sabiq ah ayaa loo helay waxaa laga helay gabayaal la odhan jiray sugulle xirsi godgodo 1928 faarax oo ay xudur ku kulmeen uu gabaygan u mariyey dabadeed isaguna 1964 casharad ugu duubay waaxdii dhaqanka ee wasaaradii waxbarashada ee dowladii Soomaaliyeed ee jirtay gabaygan wuxuu faarax ku bilaabayaa heef uu ula jeedo ama uu ku jeedinayo masaarteenka oo uu leeyahay idinka ayaaba waxa aad ku sheegaysaan ku tilmaaman halac oo oohin iyo baroor ayaa cunto aad siiseen iyo martisoor aad bixiseen aad ka qaadeen oo adduunka aad mariseen marka ayuu wuxuu xaraamayaa ninka la yidhaahdo halac qudhiisa oo uu leeyahay intuu hubyo iyo harti aadayo ee lagu gabyaayo bal hadduu wax doonayo sayid maxamed iyo caamir iyo taga oo gelin gaaleeye ayl halkaa awrta u rarto iyagu wax ka soo heli lahaa waxa ay doonaan iyadoon loo qiyaasin oo intaasuu qaatay looguna gabin ayaa wax walba uu ka heli lahaa buu leeyahay markaas wuxuu maansadii iyo silsiladii la aaday arrin aan hadda ka hor cidina ka hadlin arintu waxay joogtay hamba iyo haddii alla kuurooyaa marti iyo cilweyne iyo hadda wuxuu la aaday xagga cilmiga marka wuxuu leeyahay cilmiga xidigiska ayuu la aaday oo wuxuu ka dhigay xuto iyo halxalaale maansadii wuxuu wax ka weydiinayaa nimanka majeerteen ama harti afarta waaxooda degmooyinka xidigaha oo kale sida daalalida raqaha cirirka naafaha
علمي حسابته أيوه حدنا وحكى ويدينيا وسوق عدنا يعني كل الحلالين يعني مسألين علم فقه شريعة الإسلام كسابسا سيدا شروطها طهارة أيوه جورك خلاص قالوا كلفتي أنت سبيوه يعني أنت بنامبا أنت بروحوك ويدينيا واحد مدينه ولا شيء هذا المستري ذي أو هذا واحد تقانين كم واحد هذا ما أتقانين ده أيوه ليه صوفر أخي ما كسر شوارع sida gooni ayuu farax ka bayray xarafkii hada ahaayay lagu waday maansada silsilada hal cadeere oo hada ahayd wuxuu u jeestay ama hadda ka gabayay doonaa ama ka qaadi doonaa xarafka miimka wuxuu yiri farax maansada rag badan baa yaqaan maritinkeedii mataqaala kala joojiya madiya caynkeedii adigaanu meel dayanadaad ماذا كيسو أدمر ماذا كنت لما بنيسوس أدمر ماذا كنت لما بنيسوس الليلة ما شفتن سيدا تحي ممودين وهذا رجاك يا مرادين مغلد هذه مسكين دوزبله وين باتيه وانا لمروك محمود سليمان غير ذي مريسي هل وحيد مدين واحد كمغضاني بل ما حد منفعة ذي حساب ومشاقوتي مرياسي هذا ما حد مراديل هدي موسى نوغي مذو مرادك قيسي ملوك مياغا يا داعي لقو كوني ماهيرا magan miyaa laga qaadayo midaad ku ceebowday madax miyaa laga laayayo mudanaha duula ma waxaad martida siisay baad lacag ka miisaantay maxaa kaa maqnaa eed qalbiga uga madoobaatay awal buu malkaadaas ayay marin habaabeene سيد محمد عامر موسى عتاد ماحو إياك متمين أنفعو أما سمالك بالمحو هرتي من كفضوضو مسافوض مرتي كاكا هراي ميدان إذن شيغو الكابتن المدحي سيدو متن كحسابو حقبو تواركو مرا فرق ميرا يا مدادي حقي بيته ما تغنين أيانت يوم ناسيس يوم عسيارين مثبسي مذوب وفقا ما تغنين ما يكين ساعدو اسقر مراياني ميرا درارتي بدنا ما تغنين مسكي عرادة ميعادة يقول انت ميقارا كبت غالب كذي كمارو مالنتي أحد مسارك حتى إذا نحين ما تغنين مشتركي مريخي أدو ميراك خلافو معناه تربيعه ونغلين ما تغنين مالين أربعة يعدار مقابلة بل كبت يلتوس كغمرمان ما تغنين عشمين الديوح ومر الناس مذوبهاي سحلكون وعبالا بمرحلو بلا أم حي ورتكوذو وانا يسكم إلي ما تقنين ورما يحلالك بدنا ما تقنين ميادي حسار ومدكي مدعدو غايري مذبحة ذالو خبصدو ما تقنين بيان ويسكو قري كرين دربنا ميرين مفعلنا كو كرين ايو لغام مارمانا قوقوانا مركا كان سحين ما تقنين من مسلم حسناي مهر وحينين بالوحا مشغل لها ما تقنين من ملودي خدتلي هدو قبس مليديستو موالدكي هوري وحو مرام مليابا موقيت قرط وركو قذب كسي مغضو واحمد حلا
meel fog iska taagaraagii maanshooye badnin muquuray mawlin u galiyo malagii weeyaane magli caaladii lama maro iyo miciyaare abidkayna niman mogtanahay ma jirayni haddaynan masalada furayn maxabbadan sheegay maqlooy fagaraha muxuuga madixaaye wuxuu jeedaa baan filayaa cali sharmaarke oo silsiladan bilaabay waase khasaaro ninka sidaa u gabayaaya inaan wax kale iyo maanso kale oo ujeediyo laga haynin eedeedase waxa iska leh nimankii inta afkaa iyo maansadaas iyo gabayada quruxda badan lahaa aan ka fekerin in ay u sameeyaan fas lagu qoro waa tahay haatanna waa silsiladan gabayga ugu dambeeyey waxaa tiriyey yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere loo yaqiin wuxuu ahaa dhulbahanta oo garaad faarax qolada la yidhaahdo baarasame maansiyahanadii wuxuu ka mid ahaa weligoodba sida daacadda ah u taageeri jiray sadanadii hobyood iyo asaasaheedii suldaan yuusuf cali oo keenadiidku magac dheeraa sidaa darteed isaga iyo gooniba waxay ka mid ahaayeen daraawiish iyo sayid maxamed raggii lacolka ahaa ee u gebi jiray iyaga oo sidaasna ugu hiilinayay sadanadaasoo duubcadii wadaadka iyo iyagu ay xiiro ahaayeen intaan ognahay gabaygan aan kol dhow marin doono ee halac dheere uu ku gunaanaday iyo laba kale oo qurax ayaa yuusuf dheere laga hayaa waxaa loo malaynayaa xilliyadii dambe ee noloshiisa inuu caro waamood u soo wareegay halkaasna uu ku geeriyooday goor aanaan aqoon goor ay tahay gabaygiisan halac dheere wuxuu si gaara jawaab ugu yahay kii faarax caytame ee aan hadaaye marinayay wuxuu dhab ugu ammaanayaa majeerteenka iyo guud ahaan hartigaba sidaa la marayn karo halac iyo ogaadeenba aad ayuu ugu ceebeynayaa weliba allaha ka cafiyay sayidka qudhiisana aad buu ugu dhiiranayaa uguna aflagaadeynaya ugu dambaysta wuxuu isku dayayaa inuu ka jawaabo qaar ka mid ah su-aalihii cilmiga ahaa ee faarax caytame oo furidooda hartiga ku cadeeyey wuxuu ka jawaabay su-aalaha intooda fiqiga shareecada islaamka ku saabsanayd qaarkii cilmi falaga la xidhiiray sida meerayaasha qoraxda ku wareega iyo xidigaha dayaxu maro ee 28 ah faaraxna uu su-aalaha ka soo jeediyey xarf ahaan qaafiyadda uu doortay waa miin isaga oo taxraacay kii faarax caytame ka gabyayay maxaa yeelay sidaan soo sheegnay faarax unbuu gabaygiisani ku jeeda wuxuu yidhi yuusuf maansadu milgayreedihiyo marimo waayeele shir maawiya ninkii maahila madan la geeyaaye ogaadeen madiixaada maqal meheradaadiye maxamuud saleebaan afkaad marisay waa yaabay hadday mad iyo caynkee tahaad murama sheegayso wax margiya macnaha faarax oo kii manaaba leh wiilkaa wax laga fiiriyaa mooyiisaa tahay ee adigay maroor kaa gashay oo sagay marinkiiyo majeerteen markhaatigu sidaad maqashay weeyaane waa niman maqaawiila iyo madaxdii daaroode waa niman martabadii haya iyo maylaxdii boqor ee munbay maalka laga keenayo iyo moosinkow taga ee waa niman masuuxla u jabay iyo dahabkii miikooyo maraakiibta miiriga sida iyo maylalka u gala ee macdanbaa la dhigay daaraha muuqa sara dheere idinkay macduul idinku tahay gudubna waa maarib xaggiina maraykaan hablaha lagu mariimaayo idinkaa marqaafiga huwada ama maqaar geele mataankiiyo maryaa faraqsan iyo macawisaa laaban cimaamada makaawi ah xariir lagu muraaqoodo annagaa mardaadiga huwana midaan ku weydiin markii habeen idin soo gasho wax idin soo mooday idinkow mushaawira intaad mira ku soortaane wa sayid maxamed kaad maqashay sow makhawigii ma aha sawkaydun meeshuu fadhiyey mahadinayn ma aha manse gooye sawkii tolkaa miidi jaray ma aha mashaa'iikhda sawkii magliga mudi ogaa ma aha macaluusha naagihii u lumay maatadii leecatay maxsarkii horteed sawkii kurtood maahu tire meher mawliidka nimankii ka tegay meheradii diinta kolna adi iyo hala oo mu'diya idinma muunayne mudaahanada merag baa dhaqsaba mudan lahaydeene mudaakarada beenta ah maxaad ugu masaafootay halac waxaydun moodeenba waan idin mihiibsiina isaguba musjeex buu ahaa muudo keligiise ibliis baa malaag kugu mardaxan mooga haatan bismillaahi maxalkii maxaa magana kuu geeyey miskiin yaa ah hadal miiqan baad nolosha keentaane hilba gool magool iyo raggaan miidda ka hegaabshay mandhaleeridan ugu daray iyo mayriq iyo dheega manfac wixii aan moodaba haddaan idin mihiibsiiye marigaasi xeerada waxaan uga muraad yeelan masaakiinta noo hawlgashiyo maatada cunad
ogaadeen maxaan lagama karo mid qudaala lehee calooshii muggeed laga badsaa mawdka waa u khalise goortuu mayibay yuhuudada qaar u meel dhigaya sawharcamistii dhexe saqdii kiiman tagay maaha muraad kama lahayn helihii marashadoodii iyo wixii uu misri dhigay akhlada gogoshii maalowday maxaan muuse nacabaa haddaan weli ku maalaystay muddac iyo muddaa caley haddaynu isku maagayno oo aad mustaqirteen gartaan marag ba loo haynin sixnigaad faraha madin jirteen waa muraad qomaya ma midiidin baa tahay maxaa murugsateen weelka maqsadkeeda weeshada biyaha marasha jiirkaaga isticmaalid mooye wax kale kuma marayaane ogaadeen masaladaa ma oga maalig soo hogaya inay maa yajuus tahay gogobo magana maan sheegin meel maran majnuunad iyo baras cudurro mawjuuda shan haloo ka mid ah yaan haween meher ku haynayna iyaday mashaqadee tahay magana maan sheegin maa iyo arladu waa matale maahiyaa badane madadaalashaad ugu dartay waa macruuf tanuye inay xaajo kaa murugsan tahay magana maan sheegin ilaa ku naxariisa yuusuf ibraahim buu ahaa kaasina silsiladii halkaa ayay inoogu eg tahay waa 12 gabadh oo ay tiriyeen 9 gabayaa cali sharmaarke qamaan bulxan cali dhuux gooni bileed qamaan sayid maxamed ismaaciil male faarax aytane iyo miswilaare uu dambeeyey ilaahu kulligood u naxariiso annagana noo jeexdaafo noo daraan ugu dambaysta ilaahu soomaali dowladnimadeedu u soo celi shisheeyaha iyo shisheeye kalkaalka dabaalka ana kala tashan amiin